السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جانال كمركلة سود وهذا أدي أضاء مهتسنتهين مانتا وثلاثة وأنا كوبي لباتنك بيشة تضباد الجولاي سنة كلابادو كون إيه اللحية لباتنك مغال كان مانتا وحان ربائنا ندي كل وذاقو ريبوت أي سي وذا جره أي أسو سارين أين قرينة اللي يرادو ACLU Human Rights Watch أو لوغا هالليو متكمدة xeryaha ciidamada ICE ay ku hayaan dadka sharci cilaanta ah oo Mareykanka gudihiisa ay ka soo qabtaan tacadiyada loo geysto in haddii ay xanuunsadaan gargaar caafimaad aan loo fidinin xaaladaha nololeed oo ay ku nool yihiin midda nadaafad ahaan iyo sidoo kale jirdilo kala duwan oo loo geysto waxay wareysteen qaar ka mid ah dadka sharci cilaanta ah ee mid ka mid ah xeryahaasi ku jira oo ah tan ugu weyn oo la yiraahdo Camp East Montana isla markaana ku taala El Paso Texas haddaba xeradaasi dadka la geeyo maxay dhibaato kala duwan ay ula kulmaan gaar ahaan kuwa sharci la'aanta ah ee halkaasi lagu xiro wareysiyadii ay bixiyeen waxyaabaha ay sheegeen oo aad la yaabayso ayaan idinla wadaagaya reportkan waxaa magac looga dhigay haddii aad xeradan soo gasho adiga waa lagu masaafurinayaa ama adiga oo mayd ah ayaa laga bixinaya bal marka hore soo dhawaada waxaan ognahay maamulka madaxweyne Trump ilaa iyo markii xilka uu la wareegay inay wadaan qabqabashada dadka sharci la'aanta wadanka ku jooga oo ay masaafuriyaan qaar ay wadamadoodii u masaafuriyaan iyo qaar marka ay wadamadoodu diidaan wadan kale oo saddexaad oo dadkan aysan u dhalan ay u masaafuriyaan haddaba marka la geeyo xabsiyada oo ICE ay qabato dhibaatooyin kala duwan ayaa xabsiyada dadkaasi lagu sii haya ka hor inta aan la masaafurin ay kula kulmaan haddaba ururka la yiraahdo ACLU oo laga soo gaabiyo American Civil Liberty Union iyo hay'adda Human Rights Watch ayaa waxay soo saareen warbixin ka kooban 84 bog warbixintaasi waxa ay ciwaan ay uga dhigeen adiga haddii xeradan aad soo gasho waa lagu masaafurinaya ama adiga oo meyd ah ayaa laga bixinaya ayaa reportkan ciwaan looga dhigay waxaana ay ku wareysanayaan dad kala duwan oo iyagu xeradaasi la geeyay xerada magaceeda waxa la yiraahdaa Camp East Montana waxayna ku taalaa El Paso Texas waa xeradan aad aragtaan meel cidla oo saxraa ayay ku taalaa walibana aad u kulul haddaba dadkan dhinacyo kala duwan ayaa wax laga weydiiyay maxaabiista waxay wareysteen ilaa iyo 80 maxbuus oo 71 ka mid ah ay warbixino kala duwan ay u sheegeen waxaana ay dadkan la xiray intii u dhaxaysay October sanadkii 2025 ilaa iyo June 2026 dadkan qoysaskooda ayaa la wareystay qareenadoodii ayaa la wareystay iyaga ayaa sidoo kale iyagoo xabsiga ku jira telefonka lagu wareystay marka warbixintan waxyaabo la yaab leh oo mucjiso ah oo dhibaato loo geystay dadkaasi ayaa ku jirta horta dadkan waxay xaqiijiyeen markii la soo qabanayay in qaarkood goobtoodii shaqada laga soo qabtay qaarkood iyagoo gawaaridooda wata nalalka traffic stopka ah laga soo qabtay sida hadda ICE ay sameeyaan dadkan sidoo kale qaarkood waxa ay sheegeen in ka badan 60 waxay xaqiijiyeen in ay haysteen waxyaabo sharci ah oo Mareykanka ay ku joogaan markii la soo qabanayay marka siyaabahaasi kala duwan ayaa loo soo qabtay dadkan markii ay ciidamada ICE ay soo qabanayeen dadkan waxa ay sheegeen in xerada Camp East Montana ay musqulaheedu aysan nadiif ahayn oo aad arkayso saxrada iyo kaadida oo meel kasta iska dareerta ma jirto waxyaabo nadaafad ah oo saabuun ama shaambo gacmaha la isaga dhaqo qofku markuu suulida ka soo baxo biyuhu nadiif ma ahan meelaha la seexanayo boodbood ayaa loo xisaabiyaa halkii qayba 72 qof ayaa ku jirta oo waliba ay aad crowded ay u tahay ciriiri ay u tahay oo dadka aysan deeqin goobtaasi ay ku jiraan marka qaar ka mid ah dadka la wareystay waxyaabaha ay sheegeen ayaa waxay yihiin waxyaabo si aad ah looga naxo sida aan hadda idii sheegi doonaba haddii aan ku bilaabo mid ka mid ah dadkaasi magaciisa waxaa lagu soo koobay Ismaaciil waxana uu ka yimid wadanka Honduras ninkan waxa uu yiri markii la wareystay oo ACLU iyo Human Rights Watch ay wareysteen waxa uu yiri mararka qaar waxaan eegaa firaashka igu firaashan meesha aan seexanayo ama sariirta aan seexanayo waxaanan sidoo kale aan la yaabaa ayuu yiri in ay ii fududaan lahayd intii aan badbaadi lahaa oo jirdilkan faraha badan intii aan ku jiri lahaa waxa aan ku qeexana ma garanayo waxa aan dareemayo laakiin waxa aan dareemayaa in la hilmaamay dad fara badan ayaa halkan ku geeriyooday qofna waxa uu yiri no one cares qof
dan kale male haddii aad geeriyoto waa lagu sii bixinaya oo keliya marka mararka qaar inaan isdilo ayaanba ka doorbidaya ayuu leeyahay intii aan jirdilkan aan ku sii jiri lahaa hadalkiisa isagoo sii wata ayaa waxa uu yidhi marka xaalad maskaxiyan ayuu qofkaasi dareemaya marka dhakhtar ayaan rabaa ayuu yidhi qof marka waxaa loogu yeeray la talin u sameeya isaga marka waxa uu yidhi bal qiyaas uu yidhi dhakhtarkii wuxuu ugu yidhi macnaha waxa aad sawirataa adigoo mid ka mida meelaha aad markaa tagto farxad aad ku dareemayso adigoo joogo sawiro ayaa dhakhtarkii uu ku yidhi waxana uu yidhi kaniiniga hurdada qaado haddii aadan seexanin xilliyada habeenkiia si aad u seexato marka waxa uu yidhi bal waxaad qiyaastaa uu yidhi qofku dhahay waxa aad sawirataa meesha aad jeceshahay marka oo farxad aad ku dareento marka aad tagto arrintaasi miyayna ahayn wax laga yaqiiqsado in qof xirfadle oo dhakhtar ah in uu kuu soo jeediyo inaad indhahaada intaad xirto aad neef dheer qaadato islamarkaana aad u malayso inaad ka baxsanayso dhab ahaanta waxa aad ku jirto marka dhakhtarka wuxuu ku yidhi indhaha isku qabo bal neef qaado macnaha adigoo qofku markuu yooga samaynayo kale something like that marka waxa uu yidhi ma ahan uu yidhi intaadna neef qaato aan ka baxsanayo dhab ahaantii nolosha rasmiga ah ee aan ku jiro maxaa yeelay realitiga ama dhabtu waxa ay tahay in halkan haddii xitaa waddankaygii la ii geeyo aanan noolaanayn oo aan dhimanayo waxa uuna yidhi kaniiniga hurdada dhibaatada ay haysato kaniiniga hurdada marnaba igama qaadayo marka qof kale ayaa isaguna waxa uu yidhi weligay ma aanan dareemin midabta koor noocan la mida midka aan ku dareemay xeradan intii aan ku jiray maxaa yeelay dadka waardiyaasha ah ee xeradan jooga ayaa waxa ay ku leeyihiin ayuu yidhi marka aad xeradan El Paso ama Camp East Montana aad timaado oo El Paso Texas ku taala ma jirto laabasho haddii aad mar xeradan soo gasho laba mid ayay noqonaysaa in lagu masaafuriyo ama in adigoo meyd ah halkan lagaa bixiyo mid ka mid ah ayaa sidaasi yiri sidoo kale waardiyaasha dhibaatada ay ku hayaan dadka xeradaasi ku jirta waxaa ka mid ah waxa ay leeyihiin dadka markii la wareystay waardiyaasha xeradaasi Camp East Montana waa ayna garaacaan marka qof uu hadlo oo inaga inoo hadlo dhibaatadana haysato waxa uu yidhi waa qofka dhammaanteen ayayna bixinayaan mana ahna micno ma samaynayso uu yidhi in aad wax qalada samaysay iyo in kale laakiin waxa uu yidhi waa ina garaacayaan sidoo kalena waxa ay ma diidayaan in aan xuquuqdeena ka hadalno ama cunto nala siiyo ama daawo nala siiyo marka waxa uu sheegay marka aad hadasho waxaa soo ordayo yidhi 20 ilaa iyo 15 ka mida ilaalaha dhar wada madow ay xiran yihiin maskaraati ayaa u xiran magacna ma lahan yidhi wax magaca meesha uguma dhegano marka waa ayna garaacayaan waxyaabaha ay leeyihiinna waxaa ka mid ah adigu halkan soo galooti ayaad ka tahay waddankaadii ma ahan ayayna leeyihiin ayuu yidhi marka dhibaatooyinkaasi kala duwan ayay dadkan ka sheeganayaan xeradaasi Camp East Montana marka dadkan waxaa wareystay ACLU American Liberty Civil Union iyo sidoo kale Human Rights Watch marka tirada dadka soo galootiga sharci la'aanta ee xeryaha ICE ku geeriyooday sanadkan waxa ay gaarayaan ilaa iyo hadda bishan July bartamaheedii 22 qof ayaa ku geeriyootay xeryaha ICE ay ku hayaan dadka marka sharci la'aanta oo Mareykanka gudihiisa ay ka qabtaan sanadkii la soo dhaafay ee 2025 33 qof ayaa ku geeriyootay sida aad aragtaan marka Trump intii uu xilka hayay 55 qof ayaa xabsiyada gudahooda ku geeriyootay inta banaanka ku geeriyootay ciidamada ICE kuwii hadda todobaadyadii u dambeeyay Houston, Maine, Kikalo, Florida, labadii Minnesota ku geeriyootay iyaguna waa dad kale oo banaanka ku geeriyooday hadda waxaan arkay xitaa FBI-da inay ICE ku tiri dilalka aad geysataan hadda kadib ma baari doono ayaa lagu yiri ciidamada ICE marka FBI-du waxay la yaaban yihiin dadkan ay maalin kasta ICE ay iska dilayaan marka baaritaan kuma samaynayno ayay yiraahdeen iyadoo sidoo kalena hadda ICE cadaadis uu saaran yahay oo maamulka Trump uu leeyahay maalin kasta 2,000 qof ayaan doonayaa in aad soo qabataan oo aad soo xirtaan marka reportkan waxa uu noqday report aad loola yaabay in dadka xeradaasi Camp East Montana oo xerada ugu weyn oo dadka sharci darrada marka la soo qabta la geeyo oo ku taala xadka gobolka Montana iyo waliba gobolka Texas oo loogu magac daray East Camp Montana oo El Paso Texas ku taala waa meeshaas banaanka oo aad aragtaan oo laga dhisay xeradaasi weyn meel saxraa oo aad Texasna aad ayay u kulushahay dadkaasi waxay leeyihiin meelo qaboojiye xitaa ma jiro meelo ay hawadu ka soo gasho ma jirto
xeradaasi weyn oo la dhisay nadaafadu aad ayay u liidataa dadka halkii qayba 72 qof ayaa ku jirto waa ciriiri marka dhibaatadaasi ayaa laga soo tabinaya wasaaradda amniga gudaha arrintaasi waa ay ka jawaabtay markii wax laga weydiiyey waxayna tiri warbixintaasi gabi ahaanba in dad dhinaca bini'aadanimada si xun loola dhaqmo dadka ays gacantooda ku jira waxba kama jiraan waxayna yiraahdeen caafimaadka iyo badqabka dadka xabsiyada ays ku jira si aad ah ayaan uga taxadirnaa oo arrintaasi waa ay iska fogeeyeen marka warbixintaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo